marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo gidina waxa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida kii ugu horeeyay ku gaarka ah ayaad waxa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mardhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ay ka koobanta Somaliland iyo Somaliland sida qaynuunku uu doonayo waxa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abada cadadooda ثلثين ninkii ay vootisa hadii markan ugu horeeyay la waayo aqlabiyada 3 meelood u dhig laba ah markan lagu aqlabiyada saaxiqa Abdullah Usman janto test boqol iyo 7 مقلها oo ay jamhuuriyadda Ra'iisul Wasaaraha waxa loo doortay Abdullah Usman oo loo weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa hadee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin manta mahad ilaahi manta dadkii midowye manta waa maalin weyne manta madaxiin banaani manta waa maalin weyne manta madaxiin banaani manta markii dilkeena maanta lama madin karaayo maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta dhaxal muudiyo kharaad mudane wantay cuwatoy mataana haysee المال وشيء المال أقول عن جديد ولا مالك المال وشيء المال أقول عن جديد كلها مارستي المال وشيء marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo gidina waxa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida kii ugu horeeyay ku gaarka ah ayaad waxa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mardhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ay ka koobanta Somaliland iyo Somaliland sida qaynuunku uu doonayo waxa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abada cadadooda ثلثين ninkii ay vootisa hadii markan ugu horeeyay la waayo aqlabiyada 3 meelood u dhig laba ah markan lagu aqlabiyada saaxiqa Abdullah Usman janto test boqol iyo 7
idinka maqlahaya oo raiisul jamhuuriyadda doorashadiisa ay bilaabatay waxaa loo doortay aadan cabdullaahi cusmaan ee loo culays weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin maanta 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 waa mahad ilaahi maanta dadkii midowye maanta maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta maanta markii dhulkeena maanta lama madhin karaaye maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta dhaxaan mudowgiyo haraad mudane maantay cuwatoy mataana haysee almaadu hashee almaadee كلها مارستي النار وحشي marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo gidina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida akii ugu horeeyay ku meelgaarka ahaa hadda ayaad waxaa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mar dhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland sida qaynuunku uu doonayo waxaa in la doortay noqon kara jamciyada ragga adaada cadadooda sulusayn ninkii ay vote siisa haddii markan ugu horeeya la waayo aqlabiya 3 meelood u dhig 2 ah markana lagu aqlabiya saaxiqa Abdullahi Usman janto teste boqoliyo 700 idinka maqlahaya oo raiisul jamhuuriyadda doorashadiisa ay bilaabatay waxaa loo doortay aadan cabdullaahi cusmaan ee loo doortay culays weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin maanta waa mahad ilaahi
ilaahi maanta 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 dadkii midowye maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta markii dilkeena maanta 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 lama madhin karaayo maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 dhaxaan mudowgiyo haraad mudane maantay cuwatoy mataana haysee المال هشي المال الموت عن جديد والعمل السيد المال هشي الموت عن جديد كلها مارسي المال هشي markaas ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo giddina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida afkii ugu horeeyay ku meelgaarka ahaa hadda ayaad waxaa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mar dhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland sida qaynuunku uu doonayo waxaa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abaada cadadooda sulusayn ninkii ay vote siisa haddii markan ugu horeeya la waayo aqlabiya 3 meelood u dhig 2 ah markana lagu aqlabiya saaxiqa Abdullah Usman 107 boqol iyo 7 maqlahayaa oo ra'iisul jamhuuriyadda doorashadiisa ay bilaabatay waxaa loo doortay Cali Abdullah Usman ee loo doortay weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin maanta 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 waa mahad ilaahi maanta 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 dadkii midowye maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta
markii dhulkeena maanta 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 lama madhin karaayo maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 dhaxaan muudiyo harraad mudane maantay curatoy mataana haysee almaayo hashee almaaleeke كلها مارستي النار وحشي المال markaa ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo giddina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida kii ugu horeeyay kuma gaarka ahaa hadda ayaad waxaa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mar dhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland ana dhagay sida qaynuunku uu doonayo waxa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abaada cadadooda sulusayn ninkii ay vootisa haddii markan ugu horeeyo la waayo aqlabiya 3 meelood u dhig 2 ah markana lagu aqlabiya saaxiqa Abdullah Usman 107 boqol iyo 7 maqlahayaa oo ra'iisul jamhuuriyaha doorashadiisa ay bilaabatay waxaa loo doortay cali Abdullah Usman ee loo weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin maanta 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 waa mahad ilaahi maanta 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 dadkii midowye maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta markii dhulkeena maanta 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 lama madhin karaayo maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 dhaxaan muudiyo harraad mudane maantay curatoy mataana haysee المال هشي المال الموضوع عن جديد عن هدي